بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد walaalayaal maantay waa maalinka 10aad oo bisha dulxija ah maanta waxaa la yiraahdaa yawmul qarri waxay ka mid tahay maalmaha adduunyada ugu fadliga badan waxaa laga yaabaa dad badan in isleeyihiin carafo iyo ciid way dhamaatay oo maanta aysan dareensanayn fadligeeda nabigana waxaa ka sugnaaday sallallahu alayhi wasallam markii xajjatul wadaac uu yimid oo xoolaha uu bireynayay suubanaha inuu yiri sallallahu alayhi wasallam si abi daa'ud iyo qeyrkiiba ku sugan إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ويوم القر مالمها إلهي أكتيسة وحا أقوين بدن روايتها قارنا أقفل بدن لبدان مالين يوم النحر مالين كحولها القلايو ويوم القر مالين كويتمناد وحجيدة أي جوغان منا أو يسنكب حينين يوم القر وحا لو يري xujayda ayaa sugnaanaysa oo maalinka dawaafkii iyo sacyigii hawshii waa soo dhamaatay dhagaxtuur bas ay u joogaan iyo in ay habeenka baryaan iyo habeenada ku xiga yawmul qarri baa marka la yiraahdaa kadib xadiiska markuu sii wada wuxuu lahaa nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa loo keenay 5 halaad oo kamid ah geeli uu nabiga gowracayay sallallahu alayhi wasallam waxaad ogtahay nabiga sallallahu alayhi wasallam xajka uu xajiyo xajatul wadaacaha inuu gacantiisa ku bireeyay 3 neef culumadana ay yiraahdeen waa cimrigiisa suubanaha sallallahu alayhi wasallam 100 neef oo geel ayuu waday asagii cali baa shirkad ku ahaa cali ibn abi talib sayyidina cali radiyallahu anhu marka 63 neef kadib inta kale waxaa gowracay dad kale iyo cali iyo marka nabiga sallallahu alayhi wasallam geelaas 5 kamida ayaa u timid marka in xoolaha maalmahan dhan la qali kara garanaysa marka nabiga uu gowracay sallallahu alayhi wasallam waxay ahayd yawm nahri xoolaha uu gowracay 5 neef marka waa u kala tartameen fadafiqna ayuu leeyahay xadiiska waxay bilaabeen oo guda galeen yazdalifna inay nabiga u soo dhawaanayaan sallallahu alayhi wasallam yaa baray nabiga geela waxa baray ilaahay subhanahu wa ta'ala geelana ilaahay baa abuurtay nabigana ilaahay baa soo dirsaday sallallahu alayhi wasallam bi abihi huwa wa ummi sallallahu alayhi wasallam waa kii ay u soo dacwoon jireen xoolaha nabiga geela u soo dacwooday ratiba u soo dacwooday marka way garanayeen xayawaanaadka bal dhagaxda garanaysa oo nabi wakiilaha sallallahu alayhi wasallam dhagax baan garanaya islaami jiray markii maka aan joogay intaan ba nabi la iga dhigin buu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam shawqina wakiilaha markii uu gabyayay hanna ilayka jid'un wa huwa jamadu فعجيب أن تجمد الأحياء حن جدع إليك وهو جماد وحاكوه تير أما وحاويان دقب أما قد أسوى جماد ونفلهين فعجيب أن تجمد الأحياء وحال ياب له ذاتك النولاء إنه جمود كدعو حب النبي صلى الله عليه وسلم أي كان نغضان كوجه مدينة وما أركتها يقللا أرين تاسنا وحا رمت كدقى حديثك عدي مركم منبر كنبي الله سميي ومنبر كوكو استاغي تيركي هراء وايق هراء كو استاغي جريبا أويي أصحابته waxay leeyihiin canug ooynahay oo kala ayaa maqalnay kadibna nabigu soo degay sallallahu alayhi wasallam tiirkii ayuu sida canug yar u qabtay dhulka ku jiray ilaa uu ka aamusay marka taas uu tilmaamayay shawqi almuhim marka muhiimada waxay tahay aan hadda u niri maalinkan marka waa maalin fadli badan amalka in la joogteeyo oo waa yawmul qarri waa kow mid labaadna maalinka aan joogno wuxuu kamid yahay ayaamu tashriiq oo waxaa jira 3 maalin oo ayaamu tashriiq la yiraahdo waa maalmahan ciida ka dambeeya 11 12 13 waa ku ilaahay quraan ku yiri wadkurullaha fi ayaami macduudat maalmo kooban maalmo tirsan ilaahay xusa fi suurati al-baqara xujayda la hadlaayay oo ay ilaahay waxay ku xusayaan mina inay baryaan dhagaxana tuurtaan ay meesha u joogaan ayaamu tashriiq waxa loo yiri waa maalmihii hilba waradka hilibka ay qalajisan jireen oo qadiid wax leeyahay ka dhigan jireen marka qoraxday dhigi jireen saasa marka ayaamu tashriiq loogu bixiyay nabigana sallallahu alayhi wasallam xadiis sugnaaday wuxuu ku yiri maalinka carafo iyo yawm an-nahr maalinka ciida iyo ayaamu tashriiqan saddexda ciiduna ahlul islaam wa ciidayada hadanahay ahlul islaam wuxuu kaloo nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam inay yihiin ayaamu aklin wa shurbin wa dhikrin lillahi azza wa jalla maalmo wax la cuno oo wax la cabo oo ilaahay la xuso marka waa maalmaha ciidaha muslimiinta ay kamid yihiin wali ciidihii baan ku jirnaa iyo khayrkii iyo barakadii lamana soomi karo maalmahan ilaa marka laga reebo qof mutamattic ahaa oo xajka umra sameeyay oo tamatucay
kadibna rabo inuu soomo tobankii beri oo neefkii waayo heli waayo neefkii hadiga laga rabay qofkaas kaliya ayay marka u bannaan tahay sida xadiiska umuna caaisha ku sugnaaday fi saxiix albukhaari qofka waa soomi karaa 3 ayaam fi lxaj laakiin dadka kale oon noocaas xaajiga aan ahayn iyo kuwa naga aan xajka jirin intaba waa ciid marka ciidaha muslimiinta hala weynayo ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب خير بدن بين رجينا يا هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك